khasaaraha dhimashada iyo midda dhaawaca ah ayaa sii kordhaya beelaha dagaalamayana wali waxa ay helayaan gurmad xoogan oo labada dhinac ka kala imaanaya galdogob iyo gaalkacyo ayay maleeshiyaadkan ka soo kala jeedaan waana beelo reer mii ah oo miidega waxana ay ku dagaalamayaan deegaano hoostaga gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug waxa wararka ka imaanaya halkaas ay sheegayaan in khasaarihi ugu xooganaa dagaalkan uu ka dhalanayo ama uu ka dhashay xilli ay socdaan roobab xoogan oo mahiigaan ah oo dadka qaarna dhibaatooyin kala duwan u geysanaya soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Cumar Guux waxaan doonayaa inaan xogtan idinku wada wadaago halkan deegaano hoostaga gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan deegaanada kala ah Jiicboor iyo sidoo kale labada meegaag waxaa lagu soo waramayaa in uu ka socdo dagaal xoogan oo u dhaxeeya laba beelood oo wada dega halkaas iskuna adeegsanaya hubkii ugu cuslaa khasaare kala duwan ayaana jira oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ka imaanaya halkaas waxa ay sheegayaan in dagaalka subaxnimadii hore ee saaka uu soo bilowday laakiin maadaama xilli roobaad ay ahayd inta badanna gobolka mudugna roobab ay ka da'ayaan in rasaas goos ah ay ka socotay deegaanada ay maleeshiyaadka ku kala sugan yihiin laakiin salaadii duhur kadib oo xilliga roobabku ay istaageen ah waxaa bilowday dagaalkii ugu xooganaa oo abid la isku adeegsado hubkii ugu cuslaa dhinacyada waxaa la sheegay in inta uu roobka socday ay kala helayeen ciidamo aad u fara badan oo hubeysan oo ka kala imaanayay galdogob iyo sidoo kale gaalkacyo waxaana uu dagaalka noqday mid aad u kulul dhinacyadana weli waa ay dagaalamayaan oo ciidan ama dowladda ka tirsan ama galmudug ka tirsan oo kala dhexgalay ma jiro khasaare kala duwan ayaana laga soo warinayaa dagaalka oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo tiro rasmi ah ilaa iyo hadda aanan la xaqiijin karin maadaama uu dagaalku yahay mid aanan hor lahayn haddana waxaa dadka qaar ay sheegayaan in tirada dhimashada ilaa iyo 5 ruux ay kor u dhaafayaan dhaawacyadana intaasi ka sii badan oo qaarkood waxaa loo qaaday xarumaha caafimaad ee gaalkacyo iyo galdogob beelahan waxaa la sheegay in ay isku haystaan dhul halkaasi ku yaala oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo cadeyn galmudugna kama aysan hadlin dagaalkan laakiin maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray dagaal beeleedyo aad u xoogeysanayay oo ka socday deegaano hoostaga gobolka galgaduud hase yeeshee xilligan waxaa ku soo darsamay gobolka mudug oo isla galmudug ka tirsan dhinaca Puntland iyo sidoo kale galmudug magaalada gaalkacyo oo ay u kala qaybsan tahay haddana waxaa jira deegaano qaar oo kala hoos yimaada Puntland iyo sidoo kale galmudug deegaanada galmudug ayaana inta badan dagaal beeleedyadu ay ku soo noqnoqdaan isla markaan ay ka dhacaan habeennimadii xalay ayay ahayd kadib markii macallin dugsi qur'aan oo goor u aqalgalay isaga iyo xaaskiisa oo gurigooda wada jiifa halkaas ay ku toogteen kooxo hubaysan lama oga in arintaasi ay ka dambeyso dagaalka hadda socda iyo in kale laakiin wuxuu ku soo kordha saaxiibayaal barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa idinka ayaana noqon doona dadka ugu horeeya ee hela xogaha dagaalkaasi